السلام عليكم أنا مقعي كبلا نصر عبد علي كان سعودو كمبانيga Voice Up maanta waxaan joognaa Hotel Royal oo lagu qabanayo barnaamijka bandhiga ganacsiga iyo caafimaadka waxaan ku soo booqanay maanta Banadiriya Cafe oo kafeegoodana aan dhadhaminay kullee inaba laga ma sheekeyn karo aad iyo aad ay u macaan yahay xaruntana marar badan kullee waa ku booqan doonaa aadaan u maasantihiin Banadiriya Cafe waxay sameeyaan kafee aad u nooc badan sidaad u jeedin kullee dhadhankoodana ma ahan wax laga sheekeyn karo haddana waxa inoo sharxi doonto team kamid ah Banadiriya Cafe soo dhawo haddana waxaan tusaya qaxwa Soomaali waaye oo bunka jamraha dhirtiisa kala duwan lagu daro waxayna leedahay laba nooc oo sameeyna ayadoo sinjibiisha ay ku badan tahay ayadoo sinjibiisha meel laxaad tahay intan waxaad ku arkaysaa extra ginger oo sinjibiisheeda ku badan tan waa normal ginger ayadana sinjibiisheeda meel laxaad waaye taa markii laga soo tago waxaan kaloo haynaa kafeeya oo yani meel kala duwan looga yimaadeen laakiin packagingka locationka lagu haweenay uu yahay Muqdisho qaasatan Banadiriya saddex nooc oo bun ah waa Gold Premier iyo Classic waxa taas markaa ka soo gudbin waxa kaloo haynaa sinjibiil oo Banadiriya ah waana tana sinjibiishi borderka waaye oo yani wax kastana waad u isticmaali kartaa inta markaan isku imaano waxa haynaa shan nooc oo seerabaad oo kala duwan shanta nooc waxa yani waxyaabaha loo isticmaalay kafeega waaye badankooda sida hada faniilahan oo kale kafeega loo isticmaalaa hazelnutkan waa loos faniila kafeega loo isticmaalaa caramel-kan waa chocolate waxa loo isticmaalaa kafeega sidoo kale tiramisu waxa lagu maqli jiray cake inuu yahay laakiin hada soo flavor oo seerab ah oo ku siinaya dhadhan iyo caraf macaan ay Banadiriya ku keentay kafeega loo isticmaali karaa banaanaha caadi ahaan ilmaha qaasatan hooyooyinka gabdhaha wixii family adiga guriga kale banaanaha way isticmaali karaan laakiin kafeega lagu ma dari karo soo dhawo